عشان كورة waxaan ka soo hadalnay fractions jajabiyada ka soo hadalnay waxa jajabku yahay maanta waxaan ka hadalnaa addition and subtraction of fractions isku darka iyo kala jarka fractionada markaan doonayno inaan fraction isku darno ama kala jarno waxa leenaga baahan yahay hal shuruud inaynu buuxino taasoo ah inay isku mid yihiin labada hooseeya inay isku mid noqdaan fractionada oo same denominator mar hadda aan ka dhigno fractionada ama isku mid yihiin waynu isku dari karnaa wayna kala jari karnaa fractionada su'aal ahaan waxaan haystaa a oo lagu daray b xaggan laba loo qaybiyo xaggan labo su'aal ahaan denominatorku hooseeyo waa labo marka maadaama hooseeyo isku mid yahay oo lambar laba yahay fractionka lambar a wuxuu noqon karaa lambarku doono iyo b ama lambar noqon karaa marka maadaama labada hooseeya isku mid yihiin waana isku dari karaa hadda calaamadaas hadda ku darbayno tahay ama waxaan kartaa minus marka calaamada u dhaxaysa calaamada doonta waxaan kartaa laakiin hadda waxaan ka hadlanaa waxa loo yaqaano addition iyo subtraction minus iyo plus waxaan kartaa labadaas marka maadaama hadda labadaas ay isku mid yihiin hooseeyo isku mid yahay waa la isku dari karnaa oo labadaas maadaama isku mid yihiin hal xabaan ka soo qaadanaa maadaama mar haddii labadaas isku mid yihiin fractionada hal xabaan ka soo qaadanaa marka shuruudda aan buuxinayno ugu weyn waxa weeye markaan isku darano ama aan kala jarano inay hooseyaashu isku mid noqdaan markaasaynu isku dari karnaa ama kala jari karnaa marka maadaama hadda isku mid yihiin hal xabaan ka soo qaadanaa lambar labaan ka soo qaadanaa labadana waa isku darsamayaan maadaama halkan ay tahay ku dar amasa a oo lagu daray b marka saa uma soo daraya jawaabtu waxay noqonaysaa labadaas wixii ka soo baxay lambarku labada lambar waxay yihiin oo la isku daray oo loo qaybiyay lambar labo amase waxay noqon kartaa calaamadu minus bay noqon kartaa haddii aan minus ka dhigno aan dhahno or ama waxay noqon kartaa a oo loo qaybiyay labo oo laga jaray b oo loo qaybiyay labo marka maadaama ay labadan hooseeya isku mid yihiin hal xabaan ka soo qaadanaa labada lambarna waa kala jaranaa a iyo b waxay laba lambar ka yihiin a oo laga jaray b marka taasina noqonaysaa dee minus aan lahayd hadday ku darahana waa sidoo kale waxba iskama bedelayaan muhiimadda ugu waxa weye labadaas inay isku mid yihiin wax kale iskama bedelayaan saa uma isugu daranaa markii aan isku darano laba fraction ama aan kala jarano laba fraction haddaan tusaalaha biyo kale aynu arko maqaano tusaalahaan for example keena tusaalahaan waxaan haystaa 5 loo qaybiyay 2 oo lagu daray hal loo qaybiyay 2 hal fraction isku dar ama ka shaqo fractionkan marka maadaama fractionada isku mid yihiin labadaas hooseeyo isku mid yihiin hal xabaa ka soo qaadanaa labada lambar waa isku daraa 5 iyo 1 ana waa 5 oo lagu daray 1 waxaa noqonaysaa 6 oo lagu daray loo qaybiyay 2 marka sayna casharkii hore kusoo sheegnay fractionada waa simplify waa lagu samayn karaa because of number baa ka wada dhexeeya labadan oo waxaan wada qaybin karaa labadaba waxaan qaybin karaa number 2 marka simplify waan ku sameynaa because of saa haddaan waa kaga tegi karaa laakiin waxa ka qorqada anoo simplify ku sameeya maadaama labada number uu isu qaybsamaan marka tan labaan qaybinaa waa hal tan labaan qaybinaa waa 3 marka jawaabtu waxay noqonaysaa 3 marka saasaan uga shaqeynaa mar haddii maganaysa labada hooseeyo isku mid yihiin fractionada isku darkoodu ama kala jaritaankoodu waa isku darsamaan ama waa kasaasa calaamada bay ku xirtaa marka maadaama labadaas isku mid yihiin haddii haddeertan ay ahaan lahayd oo kale minus ahaan lahaydna waa tabtii oo kale waxba iskama bedela calaamadu halkan waxay noqon lahayd minus oo waxay noqon lahayd tusaale ahaan haddaan tusno 5 loo qaybiyay 2 oo laga jaray hal loo qaybiyay 2 marka hal balan ka soo qaadan lahaa labadan waxa ka soo qaadan 2 in 5 labadan waxa jira 5 oo laga jaray 1 anaanta 5 laga jaray 1 hal la noqon lahayd 4 oo loo qaybiyay 2 labadana waa isku sii qaybin lahaa of simplify aan soo lahaa 2 qaybi waa 1 tan 2 qaybi waa 1 tan 2 qaybi waa 2 waxa noqon lahayd ansarkuna 2 ka saasan uga shaqeynaya mar walba oo aan ka shaqeynayo aan isku darayo
laba fraction ama aan kala jaray laba fraction marka minus iyo plus ka doonta ha ahaato muhiimadda waxa weeye labadaas in denominatorkaas hooseeyuhu uu yahay isku mid hadda hooseeyuhu laba uu ahaa isku mid buu ahaa tanna waa laba waa isku mid marka saa oo isku daraya kaliya waa kala jaraya laakiin mar walba denominatorku isku mid maaha oo mar walba ma noqonayo isku mid sida awgeed marka qaar waxay noqonaysaa inaad adigu ka dhigtid isku mid denominatorka tusaale ahaan haddaan tusaale bixino kuwaan isku midka ahayn tusaale aan haysanaa hal loo qaybiyey laba oo lagu daray hal loo qaybiyey saddex marka labadan lambar isku mid maaha lanaga rabaa inaynu ka dhigno isku mid denominatorka micnaha hooseeyaha inaan isku midna ka dhigno kadibna isku darno fractionka ama kala jarno haddii halkaasi ka jaraan taasaan uga dhigi lahaa labadan hooseeya saan uga dhigi karaa isku mid waxaa jira cashar horaan kasoo hadalnay oo la yidhaahdo lowest common factor haddii lowest common factorkaan raadinaya labada ka dhexeeya labada lambar number 2 iyo 3 kadibna markaasaan isku dari karaa mar haddaan helo lowest factorka ka dhexeeya marka casharkaa soo daawo haddii aadan daawan kadibna marka casharkaa soo fahantay kadibna waad isku dari kartaa ama waad kala jari kartaa hab kalaasna jira insha allahu marka lowest common factor saan hore ku sheegnay waxaa loo raadinayaa labo xaggana waa saddex marka xaggan lambar baan u qaybinaa ilaa labadan lambar ka yimaadaan hal iyo hal tan labaan u qaybinaa waa hal saddexdana uma qaybsanto labo xaggan saddex baan dhigaa oo kana waa hal waxaan noqonaysaa labadan la isku dhuftay labadan marka la isku dhufto waa 6 waxaan noqonaysaa 2 times 3 waa 6 marka number 6 waa lowest common factorka marka lowest common factorka xaggan aan dhiganaa waxaan u qaybinaa laba loo qaybiyey 6 waa saddex lagu dhuftay hal waa saddex xagga saddex aan ku qoran lagu daray hadeer tana waa sidoo kale saddex loo qaybiyey 6 waa laba lagu dhuftay hal labadan isku qaybinaa waxaan kasoo baxana kaasaraan ku dhufanaa kasoo baxaa kaasaraan ku dhufanaa lambarka kaasar yaal lambarku doona ahaado hadeer hal baa noo yaala laakiin lambarku doona ahaado lambarkana kan u qaybinaa wixii kasoo baxaa kaasaan kusoo dhufanaa marka saddex loo qaybiyey 6 waa laba lagu dhuftay hal waa labadii halkan labaan dhiganaa marka waxay la mid noqonaysaa 6 xaggana maxay noo yaala labadan isku daranaa bes labadan markaan isku darana waxay noqonaysaa 5 marka taas waa ansarkeena taas saasaan kusoo saari karaa micnihii lowest common factorka casharkan ka socda micnihiisa loo soo saaro kadibna xaggana dhiganaysaa lambarkaasaad u qaybinaysaa kaasaraad ku dhufanaysaa xaggana ku qoranaysaa kadibna kanaad qaybinaysaa kadibna kaasaraad ku dhufanaysaa wixii kasoo baxay kadibna xaggana dhiganaysaa kadibna waa isku daraysaa hadday ku darhaan hadday kala isku dartahay hadday maynastahna waad kala jaraysaa taas waa qaab ka mid ah qaabka loo soo saaro fractional markay kala duwan yihiin qaab kalaa jira oo isna loo soo saaro oo qofku ku saari karo kaa kalena aan tusno waxaa lagu saari karaa oo kale waxaynu haysanaa hal loo qaybiyey laba oo lagu daray hal loo qaybiyey saddex marka maadaama labada number wax ka dhexeeya jira factor ka dhexeeya ma jiro labada number oo factor ay wadaagaan labada number ma jiro number 2 iyo number 3 labaduba waa prime number waxa kama dhexeeya labada number sida awgeed saan uga dhigi karaa labadan isku mid waxaan samayn karaa inaan lambar 3 aan ku dhufto lambarkan labana lambarka ku dhufto lambar 3 gebi wax ku dhufanaa lambarkan xaggana ku dhufanaa lambar 2 xaggana ku dhufanaa marka saan waxaan ka dhigi karaa denominatorka isku mid tusaale aan hadda waxaan odhanaa lambarkan waxaan ku dhufanaa 3 xaggana waxaan ku dhufanaa 2 saas marka waxay noqonaysaa 3 lagu dhuftay hal waa 3 loo qaybiyey 3 lagu dhuftay 2 waa 6 oo lagu daray ana waa sidoo kale 2 lagu dhuftay hal waa 2 oo loo qaybiyey 2 lagu dhuftay 3 waa 6 marka sidii tii hore kale aan tusaale kasoo bixinay labadan hadda denominator waa isku mid same waa 6 iyo 6 midaan kasoo qaadana labadan waa isku daraa waxay noqonaysaa 6 labadan waa isku daraa 3 lagu daray 2 ana markaa 5 loo qaybiyey 6 marka ansarkan iyo ansarkaas waa isku mid waa same marka qofku kii u fudud ansarkaas aan hadda ku saarnay lowest common factorka iyo kanaan denominatorkan isku mid ka dhignay saasaan ku saari karaa marka qofku ku doona ku saari karaa labadaba waa isku mid aad ku saaraysaa haddii aan marka mar walba isku mid
noqon karaa nambaradu way kala duwanaan karaan waxaa jira hadeer labada nambar aan ka shaqeyna hadeer wax factor kama dhexayn su'aal ahaan oo kale waxaa dhici karta su'aalahan waxaa lagu yiri waxaa isku dartaa hal loo qaybiyo 4 oo lagu daray hal loo qaybiyo 2 kalama hadeer su'aal hadeer aan ka shaqeyna kii hore 3 iyo waxay ahaayeen 2 marina factor kama dhexayn labada hadeer su'aalahan kale isku dar saabtan marka number 2 iyo number 4 waxay isku yihiin inuu factor ba ka wada dhaxeeyo factor of 2 labada number ba laba hal waqti waa 2 laba waqtina waa 4 inuu factor of 2 labada number ba sida awgeed saan uga shaqeyn karaa tan waxaan u shaqeyn karaa labadii hadeer aan wadaan soo marnay oo ahaa lowest common factor aan raadiyo kadibna ka shaqeeyo ama inaan hooseeyo labadan isku mid ka dhigo marka lowest common factor waa number 4 dee waan sa garanaas ilmihiina number 4 inuu yahay inay laba loo qaybiyo laba waa haltan laba kala shaqeeyo waa halka inay laba jeer loo shaqeeyna haddii aadan si loo soo saaro lowest common factor casharka ka soo haranay waqti kale soo daawo kadibna kan u soo gudub marka yaad baahan tahay ama aad ogeyn si loo soo saaro lowest common factor marka waxaan sameynaa lowest common factor waa 4 ka 4 hadda 4 u qaybiyana waa hal hadda hal qoftana waa halkii oo lagu daray tan 2 u qaybiyo 4 waa 2 dhufaa halka waa 2 waxaan noqonaysaa 3 loo qaybiyay 4 ka taas waa lowest common factor marka ka shaqeynayo waxaan kaloo ka shaqeyn karaa tii hadeer aanu ka dhiganay hooseeyaha isku mid oo ahayd inaan labada hooseeyo isku mid ka dhigno oo ahaa 1/4 ba hadeer haysanaa loo qaybiyo 1/2 ka labada number sideen uga dhigi karnaa isku mid marka maadaama ay labada number by factor of 2 yihiin uma baahnin in number 2 xaq ku dhufano number 3 xaq ku dhufano marka aan ku dhufano number 3 xaq waa marka xaq ka dhaxay labada number numberka xaq ku dhufana kan xaq ku dhufana sida hadda kiro casharka aan su'aal hore hadeer ka hadlinay laakiin maadaama hadeer labada number ay yihiin factor of 2 labaduba ay ka wada yihiin factors number isku dhufashada number 2 waxaan u baahnaa kaliya kan numberkan inaan 4 ka wada dhigno micnaheedu numberkan waa 4 inaan kan 4 ka dhigno hooseeyahan number 2 inaan 4 ka dhigno bas maxaan sameeynaa number 2 oo le ku dhufanaa in numberkaas aan hal wada dhigno because 2 waqti waa 4 waxaan odhanaa kan le ka kaliya ka dhiganaa inagu ka dhiganaa hoosiisa number 4 waxaan odhanaa tan already waa 4 xanaa soo qaadan tan soo qaadan ka 2 lagu dhuftay hal waa 2 oo loo qaybiyo 2 lagu dhuftay 2 waa 4 maxaan ka dhignay numberkan half kaas 1/2 ga waxaan ka dhignay hooseeyaha 4 marka hooseeyaha kasrana ku dhufanaa kana ku dhufanaa saasaan ku dhignay marka maadaama hadeer isku mid tahay hooseeyo isku mid yahay hal xabaan ka soo qaadan xanaas 4 labadan isku dar hal oo lagu daray 2 la mid tahay 3 loo qaybiyay 4 marka answerkaas iyo answerkaas isku mid marka waxaan kaga shaqeynay lowest common factor ma raadinay hadina lowest common factor waa 4 baan loo qaybinay sidaan hore ku soo sharaxnay taasaan ku soo saarnay kana waxaan ka dhignay hooseeyahaas isku mid ka dhignay hooseeyahaas maadaama lambarkan aan niri micnaheedu waa factor of 2 labaduba micnaheedu kan baynu u baahanahay inaan ka dhigno 4 lambarka lambar 2 baan 4 ka dhigno kala ma ku dhufanaa kala hadaan 2 ku dhufan xagga sarena 2 ku dhufan taasoo hadina xagga hoos wax ka bedelayna xagga sarena waxaynu ka bedelayna ku dhufan kala lambar 2 ku dhuftay xagga lambar 2 ku dhuftay kadibna inta marka ay noqotay 4 iyo 2 kadibna isku mid noqdeen labadan hooseeyo kadibna isku darnaa ama waa kala janaada isku mid dadka ka jira hal waxaan waxa soo bedeleen halkaas leeyahay noqon lahayd ka jira noqon lahayd hal laga jaray 2 oo ana sameeynas -1 bay noqon lahayd marka -1/4 bay noqon lahayd marka saas la isku dari karaa fractionada loona kala jari karaa mar haddii ay isku yihiin hooseeyaasha isku mid yihiin insha Allah halkaas aan ku jirnaa casharkeena maanta assalaamu calaykum والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.